nin u dhashay dalka Pakistan ee ku nool caasimadda dalka Ingiriiska ee magaalada London ayaa wuxuu bilaabay inuu aruuriyo lacag fara badan si uu ugu caawiyo dadweynaha Soomaaliyeed ee abaaraha ku dhuftay ku nool deegaano fara badan oo ku yaala gudaha dalka Soomaaliya. Arintani ayaa waxay soo jeedatay warbaahinta gaar ahaan warbaahinta Soomaaliyeed. wuxuuna ninkaani la kulmay mid kamid ah wariyaasheena magaalada London sida warbixintani uu ku eegayo Maxamed Qadar Ali Gaas. nin u dhashay dalka Pakistan ayaa sameeyay arrin cajiib ah taasoo ahayd kadib markii uu go'aansaday inuu lacag deeq ah u ururiyo dadka danyarta ah ee ay abaaruhu saameeyeen. ninkan ayaa u soomay dadkaas dhibku ku dhacay isagoo isdareensiinaya baahidu dhibta ay leedahay si uu la wadaago dareenkooda dadkaasi. ninkan ayaa hadafkiisu ah in uu soo ururiyo adduun lacageed oo gaaraya 10 milyan oo gini si uu ugu deeqo ummadda Soomaaliyeed. People dying in Somalia with hunger and thirst, and honestly speaking, I make a witness that I felt big shame that here we are eating and we eat so much that we have to do exercise to digest it, or we have to eat tablets like cholesterol, blood pressure, heart attack, just to control whatever we eat. And here in Britain, or in America, or in Europe, or all the countries which are well off, people are dying because of too much food. So, Alhamdulillah, I have seen before, I'm raising, fundraising, doing fundraising from ages, but I hardly see people contribute 2 pound, 3 pound, 5 pound. But now, Alhamdulillah, when I started this fasting is not like Islamic fasting that finish at sunset, but I have done fasting until either we raise 10 million pound or Allah subhanahu wa ta'ala give excessive rain in that land to finish the problem. By grace of Allah, I have made a pledge that whatever contribution will be collected in best tutors from our staff and students, I will put equal amount to that to make it double and give inshallah to both of these charities equally. Say for example, if 50,000 pound is collected, I will add 50,000 from myself, and if 100,000 will be collected, inshallah by grace of Allah, I will add 100,000 to make it 200,000. So please pray to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala give me tawfiq to do it. Jazakallah. Anagoo gabdhaha hooyooyinka best tutors shaqaalaha waxaan sameynay collection lacagtaas oo ugu talagalay dadka masaakiinta ah ee abaaraha ay ku haystaan wadamadeena. lacagtii marka waxaan soo collect gareynay in one day, lacagtii maanta aan gudoominaynaa wixii markan hadda ka dambeeyay waxaan isku dayaynaa inaan maalin walba aan lacagtaas aruurino. tishiin maanta waxaan halkan u nimid walaalkeen wuxuu ka mid yahay dadyowga ma garanaysaa hadaynu khaasatan weliba Soomaaliyeed nahay aad inoo caawiya mashaariicda faraha badan aan sameynay wax ka qabtay khaasatan riigaga ilaa iyo 6 riig ilaahay sabab uga dhigay ma garanaysaa inala qoday mashaariicdaas oo dhan wadankii nala tagay mashaariic waaweyn oo fara badan doonayay inuu nala qabto. ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay barakeeyo. walaalayaal waxaan idin sheegayaa maanta waxa weeyaan madad 50 saacadooda wuxuu ku jiray cuntadii ayuu joojiyay. sababta uu cuntada u joojiyayna wuxuu leeyahay waxa weeyaan waxa damiirkaygu siin waayay beridhood wadankii ka soo noqday iyadoo dadka walaalahayga ay baqtiyaan inaan aniguna ma garanaysaa aan dhergo sida daraadeed isagoo cuntayn karaya adduun haysta 100,000 lacagana hore inoogu deeqay haddana wuxuu go'aan ku gaadhay inuu ma garanaysaa cuntada uu iska taago. aad aan u faraxsanahay Dr. Nasir iyo best tutor lacagtii aruuriyeen ee u aruuriyeen ummadda Soomaaliyeed. ruuxantii dib aad u weynaa jira. waxaan loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed inaan ka qayb qaadano. necessary maaha inaan maaragtay labadan charity in lacagta la siiyo, laakiin waxaa necessary in ummadii la wada gaarsiiyo. qof walba beeshuu Soomaaliya waa dhul weyn weeye, qof walba wuxuu gaarsiin karo uu gaarsiiyo, charity ugu dhiibi karo uu dhiibo. Maxamed Qadar Gaas on Cable TV, London.